السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Maxamed Abdi Xasan waxaan jecelahay programming-ka. Waxaan dhisay e-learning platform kaasi oo ka kooban front-end, back-end iyo database. Front-end-ka waxaan isticmaalay JavaScript iyo framework-geeda React. Sidoo kale design-ka waxaan isticmaalay CSS iyo framework-geeda Tailwind CSS. Qaybta back-end-ka waxaan isticmaalay Node.js, Express, TypeScript, JWT, Cloudinary. Sidoo kale database waxaan isticmaalay PostgreSQL. Haddaba aynu eegno project-gayga. Application-kaygu marka ugu horeysa soo baxo sidan uu soo baxayaa qaybta ugu horeysa. Sidan oo kale waan iska diiwaangelin doonaa marka waxa lagaaga baahan yahay inaad iska diiwaangeliso. Halka magacayga gelin doonaa. halkana email-kaaga gashan doontaa. halkana username baa u samaysan doontaa application-kaaga. sidoo kale waxa lagaaga baahan yahay inaad password u samaysato. markaan iska diiwaangeliyo waxaan samayn doonaa waan iska login garayn doonaa. markaan iska login garayo system-kaygu application-kaygu saan u soo bixi doonaa. qaybtan ugu horeysa waxaan arki karayaa koorsooyinkii ugu dambeeyay cusbaa. halkan waxaan arki karayaa category kasta koorsooyinka ku jira. category web development-ka, mobile app development-ka, special courses-ka. sidoo kale waxaan samayn karayaa course-ka magaciisa ku raadin karayaa. xaggan waxaan arki karayaa category-yadu isku sii wada deysan. xaggan waxaan arki karayaa review-ga ardayda. xaggan waxaan arki karayaa contactiga meeshii lagala soo xidhiidhayay application-kayga. haddii aan course iska diiwaangeliyo course-ka React oo kale iska diiwaangelinaya tusaale. halkan waxaan arki karaa inta review ka bixisay course content-giisa. haddii aan roll now u dhaahdo video-ga ama aan daawado video-ga intro-giisa qaabkaasoo kale u soo baxayaa. haddii aan enroll now u dhaahdo ma lacagta maxaa ku bixinaysaa baa laygu odhan doonaa. ma e-dahab, ma sad, ma Premier Bank, ma Paypal, ma e-dahab, on Mastercard baa ku bixi doonaa. enroll baa odhan doonaa. enroll marka ay dhahdo qaabkan buu soo bixi doonaa. markaas pop-up-ka yar halkan waxaa layga baahan yahay inaan geliyo email-kaygii. sidoo kale xaggan waxaa layga baahan yahay inaan geliyo card number-kaygii. xaggan waxaa layga baahan yahay waqtiguu dhacayay inaan geliyo. xaggana CVC-ga layga baahan yahay. bay baa odhan doonaa. oo lacagtii waa lagu guuleystay. so waxaa lagu odhan doonaa thank you for your payment, start learning baa odhan doonaa. course-ki markaas saan buu igu soo bixi doonaa. saan baa u daawan doonaa casharadaydii. buutanadana waa ka dhaadhaafin kartaa. review baan sidoo kale ka bixin karaa course-kaygan haddii uu xumaa haddii uu fiicnaa. waxaan odhan doonaa course-kan wuu fiicnaa. submit baa odhan doonaa. saas buu igu dhan yahay qaybtaasi. haddaba waxaan idin tusi doonaa qaybtan code-kii aan ku sameeyey. qaybtan aad arkaysaan marka ugu horeysa qaybta database-ka haddaan ida tuso. waa kan qaybta database-ku. qaybtii user-ka iminka iska soo diiwaangelinaya wataa. sidoo kale qaybtii course-kuna waa tan aan dhiganaynay wataa course-kii. category-giina waa kaa. sections-kiina waa kuwan. sidoo kale lessons-kiina waa kuwan kusii dhex jira course-ka. qaybtii enrollment-iyo qofku iska soo diiwaangelinayayna waa tan. qaybtii lacag bixintuna waa tan course-ka qofku lacagta ka bixinaya.
haddii aan idin tuso qaybta controllerskiisa ama backendiga qaybtan bay noqon doontaa qaybtii userku waa taa qaybtii userku sidoo kale waa kuwan qaybtii kale chorus-kuna waa kuwa qaybtii chorus-ku haddii aan qaybta front-end-ka tago waa ta qaybtii userka front-end-ka iyo Redux-ka isku xidhaysay iminka hadda waxaan bilaabi doonaa qaybtan kale teacher dashboard-ka oo qofku uu arki karayo waxyaabuhu dhiganayay soo kale wuxuu dhigayay haddaba haddii aan ku soo galo gmail-kayga hore kaasoo ahaa macallin aan isla eegna isagana qofkani horu macallin ahaa course kastaba uu arkayaa inta iibsatay inta iska diiwaangelisay iyo inta review ka bixisayba soo kale waxa lacag uu haysto uu arki karayaa qaybta teaching-kiisa hadduu tago wuxuu arki karayaa course kastuu haysto lesson cusub uu ku darsan karaa soo kale wuxuu ku dari karaa section cusub view buu odhan karaa course-kan inta wuxuu arki karayaa video uu ka kooban yahay haddii aan qaybtaas ka dhaafno earning-ka tagno wixii aan lacageen helay ama aan course-yadan ka faa'iiday waxaa arki karayaa qaybtan course kastaba waxaan ka faa'iiday course-ka JavaScript oo kale waxaan ka faa'iiday $200 kaana $50 lacagtan faa'iiday guud ahaana waa $350 waxaan odhan karaa markaa lacagtaydan si aan u helo waan dalban karaa lacagtaydii halkan baan gelin doonaa course-ka aan rabo inaan lacagtiisa dalbado akoonkan halkan gelin doonaa soo kale akoon numberkayga soo kale halkan waxaan gelin doonaa lacagta aan rabo inaan dalbado $200 channelka aan rabo masaad ma dahab saad baa odhan doonaa description baa halkan raacin doonaa haddii loo baahdo waxaan iska odhan doonaa waa is my money then send request baa odhan doonaa haddaba qaybta waxay noogu dhanaa teacher dashboard-kii macallinka dashboard-kiisii halkii uu macallinku ka soo gelinay koorsooyinka halkii uu lacagtiisa ka maamulanayay iminka haddaba waxaan geli doonaa qaybtii admin dashboard-ka oo ah halka ninka meesha iska leh ama maamulka uu ka maamulayo system-kan oo aanu arki karin qof kale oo aan isaga ahayn ama qof manager oo isagu ogolaaday ama isagunba arki karaya iminka waxaan isla eegi doonaa markaa manager-ka qaybta manager-ka saanay u soo bixi doontaa halkan waxaan ku arki karnaa course kastaba inta qof iska diiwaangelisay halkana koorsooyinka category-ga aan haysano halkan payment fees-ka aan haysano halkana courses-ka halkaasna teachers-ka qaybtani waa qaybtii offline category waxay yeelan doontaa wax loo yaqaano offline courses oo ah koorsooyinkii hoos imanaya sida English-ka ama luqada waxa hoos imanaya English Arabic Soomaali waxyaabaha waxaas lamida soo kale offline course ku xisii yeelan karaa sub course-kiina saas uu soo bixi doonaa haddaba qaybtaas oo iska dhaafi doonaa student kaynu eegi doonaa ardayguna oo waa la diiwaangelin doonaa ardaygu saa wuxuu yeelan doonaa isaguna offline enrollment wax loo yaqaano oo ardaygan wuxuu isku diiwaangelin karaa many sub courses iminka haddii aan samaynaba tusaale new offline enrollment halkaa waxaa gelin doontaa ardayga ID-giisa tusaale 5 oo kale halka isaga automatic soo gelin doona halkana course-ka ID-giisa gelin doonta saas waa kay diiwaangeliyay soo kale waxaan ku samayn karaa delete waxa la leeyahay ma hubtaa inaad delete garayso confirm baa odhan doona oo la iga delete garayn doona qaybta recycle bin-ka la keeni doona recycle bin-ka waxaan samayn karaa ama aan ka sii saari karaa ama aan ka soo ceshan karaa waxaan tagi doonaa qaybta users-ka oo ah user kasta waxa arki kartaa role-kiisa admin waxaad odhan kartaa user-ka admin ka dhig baa odhan kartaa soo kale iska dhaafi doonaa qaybta waxaan tagi doonaa request payment-ga oo waxaan eegi doonaa lacagihii waxyaabihii la soo dalbaday macallimiinta soo dalbadeen halkan waxa ii gali doona wixii hore lacagaha ugu diray ee hore xaqiijiyay soo kale iminka qofka markan lacagtiisa u diro waxaan odhan doonaa confirm sida daraadii waa laga saari doonaa halkan laba halka igu soo haray qaybtan oo iska dhaafi doonaa waxaan tagi doonaa qaybta contact-ga waxaan eegi doonaa dadkii la soo xiriiray halkan waxaan ku raadin karaa qofka magaciisa Xamdo oo kale waxa uu soo saarayaa kaas wuxuu ahaa project-gaygii oo ahaa e-learning platform aad iyo aad baa ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan